Please share it. dadka Soomaaliyeed waxay xaq noogu leeyihiin inay ogaadaan waxa jira iyo xogta jirta inay la socdaan ay xaq noogu leeyihiin sida awgeed wax kasta oo soo kordha oo xog ah waa in lala wadaagaa oo la gaarsiiyaa waxaad ogtihiin berri inay ballantu ahayd inay murashaxiintu ay dhaheen mudaaharadan qabanaynaa dawladdu ayadoo tixgelinaysa caafimaadka iyo in amnigu dhibaato badan ka imaan karto markii horeba ra'yigeedu wuxuu ahaa inaan mudaaharaad loo baahnayn xoogga iyo xoolaha aan mudaaharaad gelinaynani loo baahan yahay inaan gelino oxygen inaan ku soo gadanno oxygen inaan ku gadanno aan dadkeena ku daawaysanno inaan gacmaha isqabsanno inaan khatarta caafimaad iyo midda amniga hor tagno sidaasay ahayd laakiin ayadoo sidaasa mar haddii walaalaheen ku adkaysteen in la qabto in laga maarmaan u tahay dawladdu waa ogolaatay waxaa ku xigtay goobtee lagu qabanaa goobtiina hal goobay sheegteen oo darjir ka dahsoon waxaa dawladdu soo jeedisay war goobo kale oo ammaan ah oo lagu qaban karo oo ammaanku ka fiican yahay oo la sugi karo oo caafimaadaan ka fiican ayaa jiree aan ku qabanno daljirku waa goob ay ku furan tahay horta 9 jid oo 6 kamida laami tahay 3 kamida jid cadayaal tahay kuna yaaliin checkpointiyo muhiim ah in ciidamo aan is aqoon shaqo isku lahayn iyo dad aan la aqoon la isugu keenaa waa adag tahay sidaasaan inaan la ahayd waa diideen waa ku adkaysteen waxay dhaheen waa inaan daljirka ku qabsannaa dawladdu waa ogolaatay hadan inay ku qabsadaan waa loo ogolaaday ayadoo la tixgelinayo in waddanka nabadiisa laga shaqeeyo in bulshada aan la qaybin in la isku xiraado ayadoo la tixgelinayo hadana waa loo ogolaaday qodobkii saddexaad oo farsamada loo gudbay sidee loo qabanaa waxay keentay in loo saaro saraakiil labada dhinac ah oo farsamo yaqaan ah oo iska wareystaan sidee loo qaban karaa dawladdu sidee ammaanka ku sugi kartaa sidee loo ilaaliyaa caafimaadka taas markay timid waxay ku adkaysteen haddana inay yiraahdeen goobta ammaankeeda waa in anagu la wareegno goobta ammaankeeda anaga la wareegayna 300 oo isku weera anaga la wareegayna ammaankeeda anaga sii qabsanayna galabta jimcaha anaga meesha la wareegayna taasina waa ku adkaatay dawladdu sababtoo ah dawladdu ayada mas'uul ka ah hadhow wax meesha ka dhacaan meel aysan ammaankeeda ayadu gacanta ku hayn nam suuragal maaha in hadhow wax laga weydiiyo sidaas darteed farsamadaas waa la isku khilaafay wada hadalkii wali socdo oo lagu heshiin walaalaheen runtii maanta waxay ku dhawaaqeen in ayagoo tixgelinaya duruufo jira ama caafimaad ama wax kasta inay mudaaharaad ka joojiyeen saasay ku dhawaaqeen aad iyo aadan u soo dhawaynaynaa inay garteen in dadka Soomaaliyeed maanta waxyaabo ka muhiimsan oo mudaaharaad ka muhiimsan oo arrimo caafimaad ama arrimo amni inay jiraan hadday garteen dawladdu aad iyo aad u soo dhawaynaysaa waana ku bogaadinaynaa waana wax aad wanaagsan qodobka kale mudaaharaad kasta oo la qabanayo dawladdu hore u sheegtay inaan waxba ka qabin haddana waxba kama qabto in la qabto laakiin mas'uuliyadda ammaanka goobta lagu qabanayo lama qaybsan karo ciidamaan isgaranayn meel ka yimid la kala garanayn hadday doonaan qaarkood la soo dhex geli karo dawladdu meelaysan ammaankeeda ayadu ogeyn mudaaharaad ka dhacaya ma sheegi karto waayo mudaaharaadku ma aha wax tirsan oo qof wato boorsa ku wato maaha bulsho la isugu yeerayo waayo cid rabtaa soo raaci karta cid kasta soo dhex geli karta ma kontrolna hadhowna mas'uuliyaddu waxay ku soo wareegaysaa dawladda ee dadka mudaaharaadka qabanaya ma qaadayaan sidaas darteed waxaan ku celcelinaynaa mudaaharaad aan amnigeeda aan sugayn oo dadkii qabanaya ay leeyihiin annaga ammaanka la wareegayna goobta iyo ammaankeeda ma aqbali karno waayo dadku jidadkay ku imaanayaan meesha ay ka imaanayaan meel kasta waxa waaye mas'uuliyad annagana saaran waay gobolka Banaadir oo aan marti u nahay oo guddoonkiisa qaariga la joogaan culays badan oo la sheegi karin ay ku qabeen arrintan ha yeeshee ayadoo sidaas wasaaradda amnigu mar walbaba waxay wada hadal kala galaysaa guddoonka gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa si loo ilaaliyo wadajirka ummadda oo bulshada loo qaybin oo dadka mucaarad iyo muxaafad danahooda la isu geliyo inta isgeli karta in arrintaas la fasaxo haddana mar kale aan ku celinaynaa waa ku bogaadinaynaa murashaxiinta hadalka ka soo yeeray inay bulshada u dhimriyaan caafimaadkooda oo ka fikiraya waxaan haddana mar dib u ballan qaadaynaa mudaaharaad haddii la qabanayo dawladdu waxba kama qabto laakiin farsamada iyo goobta iyo ammaanka iyo qaabka iyo waxa soo dhan tale lagu midaysan yahay u baahan tahay mas'uuliyaddana dawladda yeelanaysa ammaanka aad iyo aad u Please share it.